السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أصحابta qiimaha badan ee ku xiran channelkeena YouTube ee Garaadso isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan qaadan doonaa casharkeennii saddexaad ee barashada video editingka softwareka Filmora maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo transition muuqaalkana loogu daro motion kusoo dhawow casharka markaan waxaan bilaabi doonaa casharkeennii maanta marka koowaad horta intaad tagtid soo diyaarso muuqaal iyo maqal iyo wax walba aad rabtid inaad transition ku samaysid transitionkan horta waxaa lagu sameeyaa muuqaalka oo keliya iyo wixii sawiro ah waxaan u baahannahay inaad horta sawiradaada iyo waxaaga xogtaada halkan soo geshatid kadib balaaskaas taabo ama kusoo jiid labadaba waa isla mid muuqaalka si uu usoo galo timelineka hadda waxaa ii soo galay hal muuqaal kalena waa kan asagana aan soo jiido si aad usoo gashato asagana halkan maalinkii casharkii hore haddaad la socotay hadda waxaad ujeedaa casharka qaybta ugu dambeysay qaybta ugu horeysa in masaafo dheer ay udhexayso waxaan u baahanahay masaafadan yar inaan iska soo gaabiyo anoo dhanka mayniska usoo jiidaya intoo kale si aan muuqaalkay kulli u arko halkan muuqaal ayaa igu diyaarsan halkaana la muuqaal marka koowaad muuqaalkan waxaan ka bixin doonaa qaybtan dambe aan waxba faa'iido ay ku jirin waxba kama muuqdaan intaan aan iska jaro halkan ayaan joogaa right click ayaan leeyahay kadib waan iska deleedaya wixii markaasi aan wax macnaha ku jirin weeyaan halkan marka labadan muuqaal dhexdooda ayaa transitionka la geliyaa mar kasta oo muuqaalku uu sidan oo kale yahay halkan oo kale aad bay u bannaan tahay marka isku keen labada muuqaal oo kale isku soo dhawee hadda marka waxaad samaynaysaa si aad transition u gelisid halkan soo fiiri qaybtaas ay ku qoran transition aad ku dhufanaysaa halkan transition marka ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya transitionno aad u fara badan qayb 36 waaye laakiin aad u tiro badan yihiin halkan ayaad ka dooranaysaa marka hadba transitionka nooca aad rabtid weeye haddii aad kala garanaysid marka hadda waxaan tijaabin doonaa marka transition had mid baa iska soo qabsanaynaa nuucu doonaba ahaade transitionkana arkayso magacyo ah ku qoran kuwa waxaa lagu magacaabaa zoom in kuwa waxaa lagu magacaabaa zoom out hadba marka waxa weeyaan waad kala fahmi doontaaye kan un soo jiid markii aad soo jiidid waxaad dhigaysaa labadaas muuqaal dhexdooda labada muuqaal dhexdooda ayaad dhigaysaa kadib intaadan daarin bal hubi xoogaa yar aan meeshii hadda ku celiyo balaaskii oo kale aan u jiidayaa si aan u arko transitionka meesha uu fuulaayo hadda halkan transition ayaa ku jira waan iska bixinayaa aan delete ku sameeyo mid ayaan soo qaaday kii oo kale waxaan ku tusinayaa transitionka inuusan gelin hadda meesha ku ordaayo waa ujeedaa labadaas muuqaal dhexdooda maana meel kale ma galo haddii aad u baahan tahay dhexdaas kale inaad gelisid transition kala jar kadibna soo saar hadda halkan oo kale ayaan saaray transitionka marka saddex nooc ayaan u samayn karaa inaan halkan u badiyo iyo inaan dhexda dhigo videogan kale u badin karaa transitionka oo markuu soo gelayaba in transitionka u bato videogan iyo inuu bato videogan kale bal aan yara daaro muuqaalka labadan muuqaalna dhexdooda fiirso waxaan ka bixin doonaa hadda transitionkii aan ka bixiyo si aan u aragto markiisa hore siduu ahaa transitionka aan click ku siiyo kadib waxaan leeyahay deletekaas ayaa taabta hadda waan ka bixiyey waxaan daarayaa horta muuqaalka labadan muuqaal dhexdoodaas aan tijaabiyey bal waxa ku jira si aan u arko iyo sidaa usoo gelayaa marka koowaad bal transitionku waxa uu bedelaya bal aan fiirino waa caadi labada muuqaal kana wax ma bedelin kana hal mar u socday sidaas isku bedelay waxa ma soo kordhin ha transition ayaa soo gelinayaa waan soo jiiday labada muuqaal dhexdooda saab kuu sheegaba intana waa u badin karaa dhexda waa dhigi karaa kana waa u badin karaa saddexdaasba waa samayn karaa hadda maadaama ay dhexda wanaagsan tahay bal aan meesha u dhexaysa ayaan dhigayaa hadda muuqaalkii aad daarayaa waa ujeedaa transitionka si u soo galay shimbirtan iyo sida usoo gelaysa waad arkaysaa ukaa muuqaalka sidaas way badan yihiin hal xabo kaliya ma aha dhowr xabo oo kale tijaabi kuwan way badan yihiin marka halkan oo kale qaybtan haddii aad u baahan tahay oo waxa weeyaan hadda aan tijaabiyo aan dhexda dhigo asagana muuqaalkan aan daaro mar kale si aan u arko wakaa si kusoo gala waa ujeedaa asna marka xabad u tijaabi way badan yihiin hal xabo kaliya ma aha hadda mid kale ayaan fiirinaynaa kanoo kale isagoo meeshiisa ku jiro kale mid kale ayaan keenay waa ku daraya asna waxba yaana deleedinba si uu uga baxo kan wuu ka duwan yahay kii hore wakaa marka saddexdan qaybood kuwan oo kale hadda fiiri ayagana sidoo kale waan soo jiiday
aan soo jiido mar kale kan oo kale aan dusha ka saaray bes aan mar kale aan daaro waa kaa aan ku celiyey mar kale waa kaa muuqaal sidaad u samaysay marka halkan haddii uu jiro transition aad ka heshay waxaad ku samaynaysaa inaad halkan oo kale adoo jooga aad aadid right click kadibna aad dooratid add favorite halkan ayuu kuu geli doonaa hadda midkan ayaa u horeeya kuwa badan oo kale waad kusoo darsan kartaa hadba nuuci aad ka heshid 3D waa ku jira basic kuwa oo iska yara qurxoon way ku jiraan marka xabad xabad ayaa u tijaabin doontaa hadda waxaan u guda gelaynaa marka inaan tijaabino motionka xagee galaa aan ku laabto mar kale hadda waxa ii dooranaa transition waxaan dooranayaa media waxaan tegayaa horta sawirkan ayaan soo qaadayaa loogadeeda weeye halkan oo kalan keenay loogadii waad ujeedaa horta markii aan u baahan inaan yareeyo casharkii horena way ku jirtay double click c geesahaas oo kale ka yaree hal meel oo kale iskugu geey hadda halkan oo kale ayaan iskugu geeyey meeshaan oo kale aan iskugu geeyey halkaas oo kale aan dhigtay waan dheeraysto dabcan si hadhowtiina u aragno waxaan ku sameynayaa intoo kale marka ay joogto waxaan ku sameynaa marka koowaad sidan ayay ku tahay waxaa ku image ayay saaran tahay qaad halkan game motion ay ku qoran tahay markii aad u baahatid halkan mid dusha ka saar si u shaqeynaa waad arkaysaa kan usoo muuqdo ujeedaa kanoo kale si usoo baxaya kan haddana kan marka kii aad u baahatid aad leedahay kan wuu qurxoon yahay waxaad double click ayaad siinaysaa wakaa hadda sidaas ayuu ku saaran yahay bal aan tijaabiyo muuqaalkan sidoo kusoo bixi doona kan ayaa saaran double click aan saaro inuu saaran yahay waxaad ku dareemaysaa halkaas calaamadda loogada korkeeda ayaa fuulaya qaybtaas kale hadaad ku aragtid wuu saaran yahay markaas halkan oo kale keen hadda bal tijaabi muuqaalkii waan daari rabaa si u ekaado fiirso loogadiisa kusoo baxayso wakaa sidan ayay kusoo baxda loogada iyadoo cambaar soo socto oo kale marka muuqaalkana waad ku samayn kartaa muuqaal hadda dabcan muuqaalan soo gelinaya waana ku tijaabinaya isagana aan tago qaybtan oo kale halkan oo kale okay dheh kadib waa kan muuqaal kale kan oo kale aan soo jiida intoo kale keenay halkan ayaan ka jarayaa marka dhexdiisa oo kale muuqaalkan horta halkan ayaan u baahanahay halkan oo kale aan soo jiido si cabirka ugu tooso intoo kale aan imaado maqaskaas oo kale aan taabto qaybtan aan iska dileedo si uu u soo geliyo halkan oo kale intoo kale markaan imaado waxaan ku sameynayaa inaan idhaahdo click inaan siiyo mar kale ku celiyo markii aan ku celiyo halkan waxaa imaanayaa motion midkii aan raba ayaan dooranayaa muuqaalkan oo kale hadda kan oo kale waa kaa muuqaalka sidoo kusoo galay double click c isagaa qaadanaya hadda fiiri waka hadda waxaan sameynay inaan motion gelinay sawir gelinay video logooyinka qaab hadda waxaan ku daraynaa in yar oo kooban halkan oo kale waxaa macquul ah adigoo sameynaya ama ku jira editingkii video habeynaya in uu kusoo galo mashquul yar oo aan ka baxsan videoga hadda aad sameynaysid tusaale adigoo kale oo guriga jooga oo video edit gareynaya waxaa macquul ah inuu mashquul kale ku yimaado arrimo kale ay ku qabsadaan maadaama aad tahay qof bini'aadan ah marka wax walba way ku qabsan karaan haddii sidan oo kale uu yahay projectiga kuu socday waxaad samayn kartaa halkan inaad ku save garaysid projectiga marka koowaad waxaad tegaysaa file waxaana dooranaysaa save project wuxuu ku tusin doonaa halkii folderada aad ka dhigan lahayd ama desktopka dooro ama meelo kale ay kugu jiraan muuqaalo pc-ga kale dhexdiisa waa dhigan kartaa magaca ku qoro projectkii noocii aad rabtay weeyaan kadib save garee markii aad save tiraadid hadhow waxaad u baahan tahay kaliya meeshuu yaal intaad dul tagtid adigoo waxba filmooro soo kicin asaga inaad double click siisid kadib sidaas ayuu kuu soo kici doonaa marka qaabkaas oo kalena waa la sameeyaa casharkeennii maanta halkaas ku egyahay casharada ku xigana la soco asxaabta kalena sii gaarsii goodbye